fadlan subscribe saar وبالإعجابي. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلكين بمالين وناكسن كسو دوادا برامج قارا نغهالي دونا كيبا أقلما إنو كسو بلابمو قلبك بديح كوحدو مانشستر سيتي لاعبين تكلا براندو سيلفا iyo لاعب كرول الجيري رياض محرز برامج كنتو هوادا كجر waxaa la daadihin doona King Sani soo dhawaad saaxiib waan dhawahay saaxiib cabdiqani mahadsanid hore aynoo sii galno barnaamijka sidee u aragtaa inuu line-upka kooxda Manchester City ee garabka bidix ku soo bilowdo laacibka reer Algeria Riyad Mahrez dhabaanahan wuxuu soo bandhigayaa qaabciyaaleed cajiib ah aan la rumaysan karin waa runtaa cabdiqanow lama xaqiri karo tayada uu leeyahay weeraryahanka reer Algeria Riyad Mahrez laakiin aniga ahaan waxaan qabaa inuu mudan yahay in lagu soo bilaabo Bernardo Silva adigoo cabdiqanow sidee baad u aragtaa in lagu soo bilaabo Bernardo Silva laakiin maxaad is leedahay uu kaga fiican yahay Riyad Mahrez aniga ahaan waxa uu qalmin oo ka soo muuqda line-upka kooxda Manchester City ee safkeeda hore garabka bidix laacibka reer Algeria Riyad Mahrez wuxuu soo bandhigayaa qaab ciyaareed cajiib ah oo inaba caadi maahan Bernardo Silva isaga xatee wuxuu ku jiraa qaab ciyaareed fiican laakiin ma aha sidaan ka filaynay sanadkii hore iyo sanadkan farqi weyn ayaa u dhaxeeyay Bernardo Silva oo cabdiqanow run ahaantii taasu waa runtaa Bernardona isku mid ma aha xilli ciyaareedkii dhammaaday iyo kan hadda socda waxa uu ka fiicnaa kii hadda dhammaaday laakiin xaqiiqatan haddii uu helo fursad fiican waxa uu bilaabi karaa qaab ciyaareedkiisii wacnaa marka waxaan u baahannahay inuu Pep Guardiola uu aamino oo uu siiyo fursadda line-up ahaanshaha ee kooxda si uu u soo bandhigo qaab ciyaareedkiisii fiicnaa marnaba lama xaqiri karo Bernardo waayo waxaynu xasuusanaa 2016kii xilli ciyaareedkii 2016 ilaa 2017 waxa uu ciyaarayay kooxda Monaco waxa uu inaga hor yimaaday Champions League sidoo inoo ciqaabay wadaweyd waana sababtay nagu kaliftay inaan la soo wareegno sidoo kale waxa qabadkii uu fiicnaa ee uu soo bandhigay markii uu yimaaday Manchester City wadaweyd marka anigu waxaan aaminsanahay in fursad la siiyo si uu u muujiyo wax qabadkiisa in badan laacibka reer Portuguese Bernardo Silva fasal ciyaareedkii hore fasal ciyaareedkan wuxuu qaadanayaa laba xilli oo kala duwan fasal ciyaareedkii hore wuxuu cushaaqda kubadda cagta iyo taageerayaasha kooxda Blue Moon oo tusay inuu yahay mid ka mid ah laacibiinta ugu wanaagsan ee soo maray Citizenska laakiin fasal ciyaareedkan wuxuu qaadanayaa qaab ciyaareed aan sidaa u sii fiicnayn Riyad Mahrez ayaa ismuujinaya oo kulankii Chelsea labiya halkan kaga adkaanay wuxuu ahaa ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee garoonka kulankii habeen hore labiya halka guuldarada xanuunka badan ay kala kulanay kooxda Manchester United wuxuu ahaa mid 25 daqiiqo wax ka yar garoonka ku jiray wuxuu soo bandhigay kubad qurxoon ilaa uu heer daafacyada kooxda Manchester United kaga yaabsado dhulkana saxeexay skillskiisu waa uu fiican yahay goosmadiisu waa goosmo khatar ah goolantiisana Riyad Mahrez ayaa u qalmay booska koowaad inuu helo kooxda cabdiqaniyow waa runtaa saaxiib habeenkii dhaweyd guuldaradii inaga soo gaadhay Manchester United Riyad Mahrez isbedel la taaban karo ayaa uu la soo galay ciyaarta ciyaartuna waa isbedeshay markii uu garoonka soo galay laakiin taasi cadaynu maaha inuu ka fiican yahay Bernardo Silva waayo laguma qiyaasi karo hal kulan oo keliyata aniguna waxaan qabaa in uu ka fiican yahay Bernardo lana siiyo fursad uu isku muujiyo si uu u soo bandhigo xirfadiisa markaa saaxiib bal waxaan ku oran lahaa bal ila daawo imkana Bernardo Silva wax qabadkiisa in badan waan aragnaa skillska aad u qurux badan ee goosmada la yaabka lahaa oo soo bandhiga laacibka reer Portuguese Bernardo Silva Bernardo Silva Riyad Mahrez way ku soo wada bilaaban karaa Bernardo Silva wuxuu xakameyn karaa qalcadda dhexe ee garoonka qadka dhexe ayuu ku dheeli karaa Riyad Mahrezna wuxuu soo bandhigayaa sina qaab ciyaareed cajiib sidaan hore kugu sheegaba aniga ahaan waxaan aaminsanahay in Riyad Mahrez garabkaas faraha ugu qaado Joseph Pep Guardiola
waxaan jeclaan lahaa fiideo yar oo Riyad Mahrez iyo waxqabadkiisa fasal ciyaareedkan inaan la wadaagno daawadayaasha. cabdiqaniyow waan u jeedaa indhahayguna way qabanayaan driblinka iyo goysmada Riyad Mahrez. run ahaantii waanan taageeraa daawadayaashuna way arkayaan sidoo kale. run ahaantii raygaaga ma xuma in Bernardo uu dhexda ka ciyaaro Riyad Mahrezna garabka weerarka. taas laftirkeedu ma xuma, waana lagu ciyaari karaa shaxda. laakiin maadaama uuna dhexda position uuna hadda ka banaaneyn oo ay joogaan Kevin De Bruyne iyo kabtanka kooxda David Silva, marka waxaan anigu odhan lahaa Bernardo ayaa ku habboon weerarka bidixda. cabdiqaniyow waxaa la soo gaaray waqtigii aynu fursadda siin lahayn daawadayaasha. haddaba daawade yaa u qalma ayaad isleedahay booska weerarka bidix ee kooxda Manchester City inuu kusoo bilaabdo kulan walba? waxaan rajeynayaa in taageerayaasha kooxda Manchester City ee qaybta commentiga nooga soo falcelin doonaan weliba laacabka u qalma inuu kusoo bilaabo line-upka kooxda Manchester City ee garabka bidix uga codeyn doonaan. waxaan halkaa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka aan uga hadlaynay xidiga u qalma inuu kusoo bilaabo garabka bidix kooxda Manchester City. waxaana martida noogu ahaa laacibiinta kale ah Bernardo Silva iyo Riyad Mahrez. barnaamijkan waxaa si wada jirayn ku daadihinaya anigu cabdiqani ciise shidaale wiil qaran iyo weliba madar maxamed jaamac king sanay. sidaa iyo nabaadiino.